magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa soo gaaray wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyagoo loo agab dhammaystiran ku wareejiyay dhakhtarka weyn ee ku yaala magaalada Laascaanood. wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ahaan waxaanu ku wareejinaynaa wasaaradii horumarinta caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dawadii loogu talagalay cusbitaalka gobolka Sool ee ay ka hirgelisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhinaca kale waftiga ayaa kula la maamulka arada caafimaadka iyo odayaashii waxgaradka iyagoo la kala hadlay agabka daawo ay ku wareejiyaan isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood. ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka caafimaadka ayaa dhagax dhigay ward loogu talagalay in lagu daryeelo carruurta yar. halkan waxaan dhagax dhigaynaa maanta neonatal care ward oo lagu talagalay in insha Allah lagu daryeeli doono waxaanu halkan ugu dooranay waxa weeye in ilmaha yar ee dhashay xaaladdiisa caafimaad u baahan daryeel gaara in aan maadaama warkii hooyadu inagu dhow yahay inaanu ka fogaano insha Allah mudane gudoomiye halkan dhagax dhigaynaa mashruucan waxay naga caawisay waa in fankan naga taageeray hay'adda UNFPA oo aad iyo aad ugu mahadcelinayno waxaanu jecel lahay waxa imika idinla jooga injineerkii inoo sameeyay specification iyo design-ka isaguna uu ku daba taagan oo isaguna muddo halkan shaqo u joogi doona goobta maan u asdeynay inta sanadku naga dhamaan insha Allah inoo bilaabmayno inoo dhamaanay insha Allah jeeno wari xargan ka jiraan runtii gacanteenu ku haynaa inaynu inaga gudaheena ayay saarantahay inaynu inagu nabadgelyadeenna ka shaqeyno da'yarteena wax barno caafimaadkooda ka shaqeyno dalkeena inagu dhisano marka runtii Qadar Maxamed Abdi TV caalamiga Badaas 24 TV magaalada Laascaanood.